weli ma isku dayda inaad isticmaasho waxyaabaha loo adeegsado qurxinta maqaarka oo misna qarash badan aad ku bixisay? iminka waa wakhtiga ugu fiicnaa oo aad joojin lahayd waxyaabahaasi aan waxtarka ku lahayn waxyeella mooye, aadna bilaabi lahayd cunto aad qaadanayso maqaarkaagana siinaya qurux iyo caafimaad. muuqaalkan waxaan kaga hadlaynaa 10 waxyaabood oo aan isleenahay jirka bini'aadamka ayay wax badan ka bedeli doonaan. 1. barbarooniga gaduudan. waxaa la isticmaalaa isaga oo karsan iyo isagoo aan karsanayn labadaba, waxaana uu sitaa in ka badan 100% baahidaada maalmeed ee fitamiinka C-ga loo yaqaano. sidoo kale waxaa ku jira xaddi badan oo fiberka cuntada ku jira iyo vitamin B6 loo yaqaan. waxaa sidoo kale uu qani uu ku yahay maadada loo yaqaano carotenoid oo ka hortagta maqaarka inuu duuduub sameeyo, islamarkaana wuxuu siyaadiyaa wareegga dhiigga ee maqaarka uu ku imaanayo. taasi waxay dhalinaysaa in maqaarka uu yeesho muuqaal dhildhilaalaya, muuqaal dhallinyaranimo iyo mid aad u qurux badan. waxaa kaloo arrintaas u sabab ah fitamiinada ku jira awgeed. barbarooniga cas ama barbarooniga gaduudan waxa uu la dagaalamaa finanka wejiga ka soo baxa ee loo yaqaano finbarbaarka. barbarooniga cas ama gaduudan waxaa kaloo ku jira fiberka qofka uu cunaa uu dareemayo dhereg muddo isaga oo helaya kaloris yaryar ama sokor yaryar. 2. shukulaatada madow. shukulaatada madow waxa ay qani ay ku tahay antioxidantska iyo sidoo kale fatty acidska oo xoojinaya koriimashaha maqaarka bini'aadamka ah. antioxidantska ku jira awgeed shukulaatada madow waxa uu hoos u dhigaa qalaylka maqaarka, waxaa kale uu ka hortagaa in waxyeello ay kaa soo gaarto wax dhanka qoraxda. sidoo kalena kookaha oo inta badan lagu daro shukulaatada madow waxa ay dabciyaan xididada dhiigga islamarkaana siyaadisaa wareegga dhiigga, taas oo keenaysa maqaar fayow. haddaba haddii aad iibsanayso shukulaatada madow, iibso midda ay ku jirto kookaha ugu yaraan 80% si aad uga fogaato kuwa lagu daro caanaha iyo sokorta. 3. kalluunka salmoon. waa cunto aad ugu fiican la dagaalanka walwalka, cabsida, isku buuqa iyo walaahowga, waxaana uu jirkaada uu siiyaa inta badan baahida vitamin D-da loo yaqaan. sidoo kale waxa uu ka hortagaa kansarka mindhicirada waaweyn ku dhaca, cudurrada wadnaha iyo lafaha. kalluunkaasi salmonka ah waxa uu ka buuxa dufunta nooca loo yaqaano omega 3 oo aad ugu fiican la dagaalanka maqaarka duuduubma ama miinta. waxaa kale uu la dagaalamaa finbarbaarta ama finanka dhallinyarada ka soo baxa iyo xanuunka maqaarka ku yimaada. cunitaanka kalluunkaasi waxa uu madaxaaga ka dhigayaa mid nafaqaysan, waxaana uu xoojiyaa fiyaabida timaha bini'aadamka. saliidda qumbaha. waxa ay ka mid tahay ilaha ugu qanisan ee laga hela saliidaha nooca loo yaqaano saturated oils. waxaa sidoo kale ku jira luric acid oo la dagaalamo bakteeriyada iyo sidoo kale viruskaba. sidoo kale saliidda qumbaha waxa ay qani ay ku tahay aashitooyin kala duwan, kaas oo aasaas u ah fitamiin E-ga iyo waxyaabo kale. kuwaas waxay si heer sare ay kor ugu qaadaan dhiigga maqaarka, mid jilicsan oo duuduub lahayn ayay ka dhigaan. intaa waxaa dheer, waxaa aad ugu fiican qanjirka thyroidka la dhaho ee dhuunta ku yaala, islamarkaana waxay ka caawisaa hoos u dhigidda miisaanka. shaaha cagaaran. waxa uu leeyahay antioxidantska iyo amino acidka loo yaqaano lithianin oo dabciya jirka islamarkaana yareeya walwalka. marka uu kulul yahay shaaxa waxa uu sii daayaa noocyo kala duwan oo antioxidantska ka mid a, kaas oo la caddeeyey inuu ka hortago kansarka. sidoo kale shaaha cagaaran waxa uu yareeyaa halista iyo qofka dhiig karkiisa inuu kor u kaco. koostada. koostada waxa ay leedahay nafaqo badan oo aad muhiim uga jirka bini'aadamka oo ayna u baahan yihiin maalin kasta aadanuhu. waxay u fiican tahay caafimaadka. waxaa laga yaabaa inaadan jeclayn, laakiin waa il muhiim ah oo laga helo folic acid, vitamin E, magnesium, vitamin A, fiber, borotiin iyo vitamiino kale. waxay awood u leedahay jirka bini'aadamka inay wax badan ka bedasho. waxay si gaara u anfacaysaa maqaarkaada. koostada waxaa ku jira antioxidants la dagaalama dhammaan noocyada kala duwan ee waxyeelada maqaarka ku dhaca. marka aad cunto koostada, waxaad nadiifinaysaa maqaarkaaga adiga oo ka bilaabaya gudaha jirkaada. ansalaatada. inteena badan waxba uma aragno ansalaatada ama salada waxa loo yaqaano, balse waxaa ku jira fitamiino kala duwan. waxaa sidoo kale ay ka kooban tahay macdanta uu ka mid yahay sodiumka, potassiumka iyo biyo badan. waxay ka hortagtaa inuu jirka uu qalalo. isku day in aad ansalaatada aad isticmaasho maalin kasta ama ugu yaraan maalin dhaaf. haddii aad ka baqayso waxyaabo kala duwanna, ansalaatadu aad bay ugu yartahay waxyaabaha coloriska loo yaqaano. babayga waa qudaar cajiiba. wuxuu leeyahay faa'iidooyin nafaqeed oo aad u badan. waxaa aad ugu yar kaloriska waxyaabaha loo yaqaano, mana lahan wax kolestarool ah ama sokor ah. sidaa awgeed haddii aad doonayso inaad miisaankaada aad dhinto, babayga cun maalin kasta.
waxa uu aad ugu fiican yahay dheefshiidka. waxyaabaha laga helana waxaa ka mid ah vitamin c, vitamin e iyo sidoo kale vitamiinno kale. karootada faa'iidadeeda kuma koobno uun indhaha, balse sidoo kale maqaarka bini'aadamka ayay wax u tartaa. waxay si gaara ugu fiican tahay maqaarka inuu iska nadiifiyo burburka iyo unugyada dhintay. waxa ay leedahay vitamin a, waxaana ay ka hortagtaa in unugyada siyaadada ah ay ka samaysmaan dabaqyada sare ee maqaarka jirkaada. faa'iidada kale waxaa ka mid ah in vitamin a ay leedahay, waxaana uu yareeyaa unugyada kansarka. dhammaan cunooyinkan aan ka soo sheegnay waxay faa'iido qurux badan ay u leeyihiin jirkaada iyo maqaarkaada, taas oo ku siin karta qurux dabiici ah. waxyaabo badan oo faa'iido ah ayaana ku jira. waxaan ka soo xigtay barta daryeel magazine oo warbixintan qoray. waxaan filayaa inaad wax badan ka kororsatay 10 cuntooyin ee kobciya caafimaadka jirkaada iyo maqaarkaada. haddii ay tahay markii kugu horreysay aadna soo booqato, fadlan subscribe dheh oo hel hadda wixii ka dambeeya warbixinno cilmi guud ah oo faa'iidooyin badan aad ka heli doontid insha allah. nabadgelyo.